إنا لله وإنا إليه راجعون ور مرغله oo goorna soo gaaray waxa uu sheegayaa inuu geeriyoodo Allah naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa geeridiisa waxa xaqiijiyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook sidoo kale agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa sidaas oo kale u xaqiijiyay wararkii ugu dambeeyay naga soo gaarayo magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxay sheegayaan in dhaqaatiirta dabiibaysay ama baxnaaninayay dhaawaca gudoomiyaha injineer Yariisow inay xaqiijiyeen in geerida gudoomiyaha injineer Yariisow Allah naxariisto waxa uu ku dhaawacmay qarax toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir kaasi oo ahaa mid ismiidaamin ah Allah u naxariisto goordhow waxaan idin soo gudbin doonaa taariikhda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamaan dadka ku xiran channelkan fadlan qaybta hoose commentiga noogu reeba ducada aan u duceyno gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yariisow